cadowgaagu waa kuma imise cadow ayaad leedahay cadow ma waxaad u taqaanaa qofka xoolihiisa kuu diida ama ballankaaga baxay ama mar walba ku xasdaya ma ahan cadowgaaga dhabta ah waa kii alla subxaanahu watacaala uu kuu sheegay cadowgaagana waa afar midka koowaad waa shaydaan lacnatullaahi calayh waana kii alla subxaanahu watacaala uu yidhi إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير shaydaanku waa colkiina ee idinna col ka yeesha wuxuuna uun ugu yeeraa xisbigiisa si aad uga mid noqotaan asxaabta naarta saciiro cadowgaaga labaadna waa nafsadaada وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم maanan bari yeelaya nafsadeyda naftuna way farad badan tahay xumaanta naxariista rabbigay mooye rabbigeena waa dembi dhaafe naxariista cadowgaaga saddexaadna waa hawadaada alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ka waran ruux ilaahay ka yeesha hawadiisii oo allah dhumiyey asigoo cilmi leh oo daboolay maqalkiisa iyo qalbigiisa yeelayna araggiisa dabool yaa hanuunin doona allah kadib miyeedan wax xasuusanayn cadowgaaga afraadna waa adduunyada oo allah subxaanahu watacaala uu leeyahay اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور haddaba waxaad ogaataa inaad afartaas cadow leedahay waana afar cadow oo kala daran maxaa yeelay shaydaanku uma tagna inuu ku baadiyeeyo maahane haddaadan ka dhiganin cadow nafsadaada mar nafsadaada haddii ku hogaamiso oo aadan kala garin qaladka oo aad saxeeda u qaadato qaladkeedana aad u qaadato sax waxaad tahay qof ay nafsadiisa hogaamisay sidii ku wadana wixii ku geynaysaa jahanamo haddii aadan iska qaban allah ayaan ka meegiganlay hawadaada oo mar walba iska raaraacdo didiila aadan gaarayn aad mar walba ka fikirto heer aad gaarto ma wax walba aad u samaysay didiiladaada darteed iyadana waxay ku geynaysaa jahanamo ciyaadan billaah adduunyada wax kale maaha waa adigoo qubaystay oo libistay haddana shanaysatay oo baxay haddana aad malayso inaad ku warayso dhaldhalaalka beenta ah oo ilaawdo wixii lagu abuuray iyo halka aad ku socoto adduunyadana si ay ku wado waxay ku geynaysaa jahanamo allah ayaan ka magan galnay waxaadna ogaataa waxaas oo dhan waxa u taliya ibliis naclatullaahi calayh haddii aadan fikirin oo naftaada xisaabinin maalinta aakhiro waa lagu xisaabin diidaya ama yeeshayaaba soo nagalama raba inaan iska dhicino afartaas cadow qofka caaqilka wuxuu ku jawaabayaa haa oo sidee baan isaga dhicinaa afartaas cadow oo aanan la arkaynin waxaad isaga dhicin kartaa kitaabka alle iyo sunnada nebi maxamed aad ku dheganaato sallallahu calayhi wasalam waayo nebigu wuxuu leeyahay waxaan idinkaga tegay laba shay oo kale ah kitaabka allah iyo sunnadeydii haddaba qofkii qabsada kitaabka alleh wuxuu iska dhiciyey afartaas cadow ee aan soo sheegnay qofkan iska dhicinayo eedi nafsadiisa maahe waxaan u dardaarmayaa nafsadeyda iyo diinaba cabsida alleh وبالله التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.